بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقيستيال هلكن وإذا عدى استعراف من مقالة مقدشو كسو لواذا برنامج وريدك حقمال إذا عدى استعراف أو هبين والبقوران أو كلاء إذا كسو تبينو استوديو هنا مقالة مقدشو مركا لقريبا هبين ذا قميستا إيا جمعها saddex iyo 20 bisha Maarso sanadka 2020 qodobada xiisaha leh barnaamijka caawa aad ku maqli doontaan waxa kamid ah xukuumadda Puntland ayaa amartay in la xiro masaajidda ku yaala deegaanada maamulkaasi iyo dugsiyada Qur'aanka cabsi laga qabo cudurka coronavirus safaaradaha Soomaaliya ee ku leedahay dalalka Hindiya iyo Kenya waxa ay ku dhawaaqeen in ay hakiyeen shaqooyinkii ay wahayeen shacabka Soomaaliyeed ee ku nool dalalkaasi qodobada kale ee aad ku maqli doontaan barnaamijka waxa kamid ah waxaan la kulanay laba qof oo qaba cudurkaasi labada qof waa sahala weeyaan hadana oo ayagana dawladdu ama wasaaradda caafimaadku gacantay ku haysaa waa madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle oo xaqiijiyay in laba kiis oo kamid ah cudurka coronavirus laga helay dalkiisa kadib shir jaraa'id oo maanta ku qabtay magaalada Djibouti barnaamijka ayaan idinku hayaa qodobo kale iyo warar dhacdooyin ku saabsan cudurka coronavirus ayaan barnaamijka idinku soo gudbin doonaa qodobada kale ee barnaamijka ku jirana waxa kamid ah 24 saac gudahood inay dhammaan biyaha Puntland uga baxaan shati kasto ay heestaanna waa dhaqan ka bax waa la kansalay go'aankaas buriyay waa inay si degdeg ah uga baxaan biyaha Puntland oo amar iyo digniin u dirtay kalluumaysatada ka jilaabata xeebaha deegaanada maamulkaasi Puntland wasiirka wasaaradda kalluumaysiga ee qeyraadka Puntland Faarax Maxamuud Cawaash ayaa arintaasi ka hadlaya wasaaradda beeraha ee Hirshabeellana waxa ay ka digtay in mar kale wabiga Shabeelle uu fatahaad ka sameeyo deegaanada maamulkaasi wasiirka xogeenka wasaaraddaas waxa uu adeyn u jeediyay hay'adda beeraha adduunka ee FAO sidoo kale barnaamijka qodobada aan idinku hayo waxa kamid ah waa maxay saameynta Soomaaliya ay ku yeelan karto in ay mowqif dhexdhexaad ah ay ka qaadato khilaafka u dhaxeeya dalalka Itoobiya iyo Masar ma aragtay dinac markaas aan aadno waliba wax ku dari lahayn ma aragtay Itoobiya aadinayo ma aragtay Masar ma aragtay irrada Allah jirna aan wanaajino xildhibaanada baarlamaanka labaad ee maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo maanta lagu dhaariyay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay gabagabada barnaamijkana waxaan idinku hayaa Soomaalo isku qoysaho afiyo dhaqan quraalaho qormiyo meel wada degtana maxalo kala qoqob barnaamijka xogmaal waxa soo saaray halkana ka soo jeedinaya Sidaam Maxamed Daayir Maxamed Abuukar Cabdi ayaa farsameynaya marka hore waxaad ku soo dhawaataan wararka dhacdooyinka Soomaalida iyo caalamka Cabdixafiid Nuur Maxamuud ayaa inoo haya mahadsan Sidaam Maxamed Daayir wasiirka wasaaradda cadaaladda arrimaha diinta dastuurka iyo dhaqan celinta maamul goboleedka Puntland Cawil Sheekh Xaamud Maxamed oo maanta warbaahinta kula hadlayay magaalada Garowe ayaa amar ku bixiyay in muddo 2 toddobaad la xiro dhammaan masaajidda iyo dugsiyada Qur'aanka ee ku yaala deegaanada maamul goboleedka Puntland si looga hortago faafitaanka cudurka COVID-19 wasiir Xaamud ayaa sidoo kale culimaa diinka masaajidda iyo macallimiinta dugsiyada Qur'aanka ku booriyay inay si degdeg ah u dhaqangeliyaan fulinta amarkaasi waxaana uu ku hanjabay in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono ciddii aan u hoggaansamin amarka maamulka
go'aankan ayaa ku soo beegmaya maalmo kadib markii xukuumadda maamulka puntland ay fasaxday dhammaan goobaha waxbarashada iyo xafiisyada dawladda isla markaana ay amar ku bixisay in la joojiyo kulimada dadweynaha iyo xafladaha aroosyada si looga hortago cudurka dunida aafeeyey ee covid-19 xafiiska hogaamiyaha dalka Jarmalka ayaa sheecay in Angela Merkel ay maanta go'aansatay inay iskaraantiisho kadib markii ay la kulantay dhakhtar laga helay cudurka covid-19 afayeen u hadlay xukuumadda Jarmalka oo lagu magacaabo Stefan Sperte waxa uu sheegay in cudurka corona laga helay dhakhtar tallaalay ra'iisul wasaaraha Jarmalka maalinnimadii Jimcaha waxaa si joogta looga baari doonaa cudurka corona maalmaha soo socda baaritaankuna ma noqon doono mid qarsoodiya ayuu yiri afayeenku wuxuu sheegay in Angela Merkel ay sii wadi doonto waajibaadkeedii shaqo iyadoo ku sugan gurigeeda dawladda Afghanistan ayaa sheegtay in 24 saac la soo dhaafay ciidamadeedu dileen 50 xubnood oo ka tirsan maleeshiyaadka ururka Taliban oo ku jiro mid ka mid ah hogaamiyayaashooda dawladdu waxa ay sheegtay in 12 xubnood ay ku dishay gobolka Kandahar 8 kalena lagu dilay gobolka Helmand halka 5 xubnood lagu dilay gobolka Sabul dhammaantood goboladaasi waxay ku yaalaan koonfurta dalkaasi Afghanistan dhinaca kale labadii maalmood ee la soo dhaafay maleeshiyaadka Taliban waxay weeraro qorshaysan ku soo qaadeen saldhigyada militariga ciidamada dawladda Afghanistan ee gobolka Sabul, Baglan iyo Kabisa halkaasi ay ku dileen 40 xubnood oo ka tirsan militariga waddanka Afghanistan madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ayaa cambaareeyay weerarada Taliban waxa uuna sheegay in dhacdooyinkii ugu dambeeyay ay tilmaamayaan in Taliban ay ka cagajiidayso in xal nabadeed laga gaaro dagaalka ka socda Afghanistan xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Pompeo ayaa booqasho aan la shaacin ku tagay Isniinta maanta ah magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan halkaasi oo la filayo inuu riixo wadahadallada nabadda ee Afghanistan iyo sidii xal loogu heli lahaa qalalaasaha siyaasadeed kadib markii doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi uu muran ka dhashay Pompeo ayaa la kulmi doona madaxweyne Ashraf Ghani iyo ninka la tartamaya ay ishayaan ee lagu magacaabo Abdullah Ashraf Ghani ayaa lagu dhawaaqay inuu yahay ninka ku guuleystay doorashadii madaxtinimada dalkaasi halka Abdullah uu ku gacan saaray natiijada labada mas'uul ayaa mid kastaaba iskiis u qabsaday xafladda dhaarta ee madaxweynenimada booqashada Mark Pompeo ayaa timid maalin kadib markii Mareykanka iyo Qatar ay gacan ka geysteen in saraakiisha Afghanistan iyo Taliban ay wada hadal toos ah ku yeeshaan dhanka aaladaha la iska arko ee internetka Salmaay Khalizaad oo ergeyga nabadda ee Mareykanka ee dalka Afghanistan ayaa sheegay in labada dhinac ee Afghanistan iyo Taliban ay ka dhabeeyeen siday uga go'an tahay yareynta rabshadaha wadahadallada gudaha Afghanistan iyo xabad joojin dhammaystiran oo joogto ah iyagoo la isla gartay in la qabto wadahadallo dheeri ah labada cisho ee soo socota sidoo kale waxaa xusid mudan in maanta ay ciidamada Afghanistan sheegeen in ay dileen 50 xubnood oo ka tirsan ciidamada maleeshiyaadka ururka Taliban ugu dambeyntiina dalka China ayaa ku warantay in maalinkii shanaad oo xiriir ah aan gudaha dalkaasi laga diiwaan gelin wax kiis ah oo la xiriira cudurka dalkaasi ka soo bilowday ee caalamka ku sii fidaya ee loogu magac daray COVID-19 waxay sidoo kale sheegtay in tirada kiisaska la diiwaan geliyay ee dadka ka imaanaya dibadda ay maanta hoos u dhacday China ayaa xaddii xaqiijisay 39 kiis oo ah cudurka COVID-19 taasi oo ka yar 46 kiis oo la diiwaan geliyay maalin ka hor dhammaan kiisaskaasi ayaa ah dad dibadda ka soo safray oo badankoodu ay arday Shiineys yihiin dhinaca kale magaalada caasimadda ah ee Beijing ayaa sare u qaaday tallaabooyinka lagu xakameynayo fayraska loo soo dhoofiyo iyadoo dhammaan diyaaradaha caalamiga ah ku amartay in laga bilaabo Isniinta maanta ah ay u weecdaan magaalooyin kale sida Shanghai iyo Shenzhen halkaasi oo rakaabka ay ku mari doonaan tijaabo caafimaad Beijing ayaa diiwaan gelisay 10 kiis oo ah cudurka COVID-19 inay qabaan dad dibadda ka yimid sida uu sheegay guddiga qaran ee caafimaadka taasi oo ka yar 13 kiis ee la diiwaan geliyay maalin ka hor guddiga qaran ee caafimaadka ma sheegin dalalka ay rumaysan yihiin inay ka yimaadeen dadka qaba cudurka COVID-19 hase yeeshee mas'uuliyiinta magaalada Beijing ayaa sheegay inay diiwaan geliyeen kiisaska dadka kala yimid
waddamada Spain, Britain, Faransa, Maraykanka iyo Bakistan. tirada guud ee dadka uu xanuunku ku saameeyay dalka China ayaa xaddii ahayd 81,093 qof, halka tirada dhimashada ay taagan tahay 3,270 ruux oo Chinese ah. wararka dhacdooyinka caalamka ee barnaamijka xogmaalna caawa waa naga intaasi aan dib idinkugu celiyo Sidaam Maxamed Daahir iyo qaybaha barnaamijka ka haray. mahadsanid cabdixafiid halkaad ka dhageysanayseen warkaas dhacdooyinka Soomaalida iyo caalamka quseeya waa idaacadda Star FM magaalada Muqdisho oo aad ka maqashaan raadiyaha online-ka baraha bulshada live stream-ka iyo satellite-ka halkan waa Star FM Muqdisho. aan ku bilowna dhageystayaal xukuumadda Puntland ayaa waxa ay ku dhawaaqday in la xirayo iskuulada iyo dugsiyada Qur'aanka ee ku yaala deegaanada maamulkaasi cabsi laga qaba cudurka coronavirus awgees. wasiirka cadaaladda arrimaha diinta dhaqan celinta Puntland Cawil Sheekh Xamuud ayaa waxa uu soo saaray amar lagu xirayo masaajidda iyo dugsiyada Qur'aanka ee deegaanada maamulka Puntland waxaana uu faray imaamyada masaajidda iyo macallimiinta dugsiyada Qur'aanka inay amarkaasi u hoggaansamaan oo ay xiraan ciddii amarkaasi u hoggaansaminna waxa uu sheegay inay tallaabo ka qaadi doonaan. sidii madaxweynuhu uu yiri meelaha la joojiyay ama la xiray 2 week waxa ku jira dugsiyada Qur'aanka meelaha la isugu yimaado dhammaan iyagoo aan la kala qaadin. waxaan sii xoojinaynaa marka inay jiraan weli dugsiyaal furan oo dugsiyaal Qur'aan ah iyo meelaha xanaanada ah oo ciyaalka iskuulka iyo Qur'aanka loogu dhigo. waxaan u sheegaynaa iyaga in la xiro oo sida ugu dhaqsaha badan loo xiro haddii aan la xirinna dawladdu ay ka qaadan doonto tallaabo cad sababtoo ah waa jabin la jabiyey amarkii ka soo baxay xukuumadda. marka qolyahaas waa inay xiraan dugsiyada waa inay xiraan. arrinta sida loo sameynayana waxa weeyaan caafimaad iyo ilaahay inuuna ka hayo masiibadaas adduunka maanta ku faafaysa si looga hortago si uusan markii arrintu ay dhacdo oo xaaladdu ay faraha uga baxdo meel aynu wax ka qabanno marka aynu weyno. waxaan kaloo amraynaa iyadana masaajidada 2 week oo madaxweynuhu iyo xukuumaddu ay qabatay in iyagana la xiro iyadoo caafimaad ahaan loo yeelayo maxaa yeelay waa meelihii ugu badnaa ee la isugu imaanayay oo dadku isugu imaanayeen khatar ayayna leedahay. islaamkuna saynu ognahay wuxuu kor u qaadaa nolosha ma uu dhiirigeliyo geerida ma uu dhiirigeliyo. marka caafimaad ahaan iyo inuusan cudurkan uusan faafin oo bulshada uusan ku faafin ayaa arrintaas ku saabsantaa. haddii aan ku sii socdo isla wararka Puntland wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee Puntland waxa ay digniin u dirtay kalluumaysatada ajaanibta ah ee ka jilaabta xeebaha deegaanada maamulkaasi Puntland. wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee Puntland Faarax Maxamuud Cawaash waxa uu sheegay in loo baahan yahay in 24 saac gudahooda ay xeebaha Puntland uga baxaan kalluumaysatada ajaanibta ah ee ka jilaabta xeebaha deegaanada maamulkaasi Puntland haddii kale buu yiri tallaabo ayaynu ka qaadi doonaa kalluumaysatadaasi. bismillaahi raxmaani raxiim wasiirka wasaaradda cadaaladda wasiirka wasaaradda caafimaadka waxaan saaka halkan isugu nimi shir saxaafadeedkan uu qayb ka yahay ka hortagga iyo diyaargarowga cudurka dilaaga ah halista badan ee coronavirus. 7 bishan Maars golaha xukuumadda Puntland oo uu shirgudoominayay madaxweynaha dowladda Puntland waxay isku raaceen go'aanna ka soo saareen in la joojiyay muddo bil ah doonyaha kalluumaysiga ee dibadda ka imanayay. isla subaxii xigay 8 bisha qoraal baan qoray aan wada qaybinay. amarkaas waa sidiisii buuna dhaqangal u yahay. doonyaha badda ku jira ee Iiraaniyiinta u badan ee biyaha Puntland ku jira waxaan siinaynaa digniintii u dambeysay wakiiladoodana waan haynaa nambaradooda wayna na maqlayaan meelahay ku kala sugan yihiinna waan naqaan 24 saac gudahood inay dhammaan biyaha Puntland uga baxaan shati kasto ay heestaanna waa dhaqan ka bax
waa la kansalay go'aankaasaa buriyey waa inay si degdega uga baxaan biyaha Puntland maayarada gudoomiyaasha degmooyinka xeebaha ku yaala taliyaasha saldhigyada degmooyinka xeebaha ku yaala iyagana waxaa la farayaa ma jirto qof ka soo degi kara doonyahaas oo marsa Puntland iyo xeebteeda cag soo dhigi kara rajadeenna ugu wanaagsan maanta waa ka hortag dhegeysta haddii aad hadda inagu soo biirtay idaacadda Star FM ayaad naga dhageysanaysaa barnaamijka aad maqlaysid waa xogmaal عاويسي wanaagsan ayaynu idin leenahay meel walba aad joogtaan si kastoo aad inoo maqlaysaan haddii aan ku sii socono wararka iyo dhacdooyinka cudurka coronavirus madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Djibouti waxa uu xaqiijiyay in markii ugu horeysay 2 kiis oo kamid ah cudurka coronavirus laga helay dalkaasi waxa uu sheegay in heegan la geliyay saraakiisha caafimaadka ee dalkaasi Djibouti isagoona sheegay inay ka hortagi doonaan khatarta cudurkaasi coronavirus iyo dadka kale ee nala nool waxa aan leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxa aan hadalka u qaatay maantana mar labaad waxa weeye dhibaatooyinka caabuqaasi coronavirus la yidhaahdo uu ku hayo adduunka uu nagu soo durkayaa dharaartii horena waa sheegnay maantana waan ku celinaynaa maca alasaf ashadiid waxa aan la kulannay 2 qof oo qaba cudurkaasi 2 qofi waa sahaala weeyaan haddana oo ayagana dowladdu ama wasaaradda caafimaadku gacantay ku haysaa kolka waxaa dee waad garanaysaanoo qof qaba cudurkaasi reerkiisa hareerihiisa asxaabtiisa intaba u gaadhsiinaya maalin qudhahatay inuu 20 iyo 30 wax ka badan u tabin karaya dhibaataduna halka ay ka socoto halkaas weey waxa aan qaadnay tallaabooyin si aan u badbaadino dadkeena tallaabooyinkaasi waa nagii iskuuladii xidhnay waa nagii masaajidda nidhi hal iska ilaaliyo waa nagii nidhi socodka hal joojiyo waxaase muuqata inay dadkeeni weli aanay dareemeyn ama aanay moodeynin waxani wax halis ay moodeen 300,000 oo qof ama 500,000 oo qof wax ka badan ayuu hayaa cudurkaas waxa ay soo gaadheen dhimashadii kumaankum bay soo gaadheen wadano badani sida ay yaani ilaa ay bando keenaan way ka joogsani waay baalkii socodkiisii oo dadkii oo dhan wuu ku fidaya anagu markaasi inaan hurudno oo aan dhayalsano maaha mas-uuliyadeyduna aniga waxa weeyaan in aan dadka aan ku khasbo haddii loo baahdo in ay cudurkaasi aan iska wada ilaalino dadku isku dhex nool yahay waddanku waddan yar weeyaan dhibaatooyin fara badan ayaan ka baqaynaa walka waxaan haddana garanay imika inaan dowladda shaqaalaheega aan fasaxno 7 maalmood kolka laga reebo qolada biyaha ka shaqeysa kuwa kooraanka ka shaqeeya kuwa boorka ka shaqeeya kuwa booliiska ah iyo armeega ah iyo caafimaadka intaas in aan siino 7 maalmood inay intaa mooyaane inta kale oo dhan inay iyo waxaan iloobay maxaa la yidhaahdaa ragga cashuuraadka ee duwaanka ayaan iloobay intaa marka la isku daro intaa maahina inta kale oo dhani inay fadhido guryahooga dadka oo dhanina waxaan jecelnahay intaa maahina inaanay guryahooga ku ekaadaan keligood ku noolaadaan oo socod iyo waxaas la joojiyo wax daruuri ah mooyaane hala joojiya baan leenahay waan ku celinayaa mar labaad guryihiina ku ekaada socodka daaya اللهم إني بلغت والسلام عليكم ورحمة الله كان إسراعيني قراني موحيتاي كان إسراعيني
qarannimo waxay tahay qiimaheeda lumiya cadowba qabsada oo qabow kuma nastaan markan Somaliland iyo cudurka coronavirus maamulka Somaliland ayaa 16 qofood oo looga shakisan yahay in ay qabaan cudurka coronavirus waxa ay ku karantiileen magaalada Hargeysa ee xarunta maamulkaasi Somaliland Dr. Maxamed Cabdi Hargey oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee Somaliland ayaa sheegay in 16 qofood oo Soomaali ah looga shakisan yahay cudurka coronavirus lagu karantiilay magaalada Hargeysa waxaana uu sheegay in xarumo wanaagsan ay u diyaariyeen isla markaana muddo 14 cisho ah halkaasi lagu karantiili doono ilaa imika inaga wax case ah ama wax xaalad ah oo xanuunkaas ah oo dalkeena soo galay ma jiro ilaahayna waxaan ka baryaynaa in aanu sidaa inoogu keenin laakiin wadamadii deejaarkeena ayuu cases lagu arkay marka waxaynu sii libin laabaynaa dadaalkii aynu ka hortaga aynu u wadnay waxaan kula talinayaa dadka inay qaataan amaawiirta shaqaalaha caafimaadka arrintaasi waa arrin muhiima haddii ay tahay waxa iman doontaa in dad badan oo dibadda ka yimid oo madaarka ka soo degay oo wadamada riskiga ka yimid in la geliyo karantiin 15 cisho dadku waa inay u fahmaan inay tahay hawl ay wada wasaaradda caafimaadku oo la isla qaatay oo la go'aansaday oo lagaga hortagayay inuu xanuunkani uu dhulkeena soo gaadho ama uu inagu soo fido waa inay dadku sida loogu talagalay u qaataan aanu diyaarinay meelo dadka lagu hayn karo oo ah meelo safe ah noloshooda inay ka helayaan markaa waxa aan jecelahay inay qaataan amaawiirta dhakhaatiirta iyo howlwadeennada ay kula kulmayaan meelaha entry point-ka ah ee ay ka soo galeen ama meelaha laga soo gelayo hadday tahay madaarka iyo hadday tahay xuduudaha kaleba waxa kale oo aan doonayaa inaan fursadan uga faa'iideysto oo aan waliba qolaha media-hana inay fidiyaan aan jecelahay in dadkeena soo noqonaya ee ka soo noqonaya meelaha uu xanuunkani aadka uga jiro inay nagala qayb qaataan horumarinta ay iska joogaan inta uu xanuunkani adduunyada ka yaraanayo waa talo waxaad u imanaysaan waa dadkiinii xanuunkana waa xanuun si degdeg ah u fidaya waxa aan jecelahay inuu dadka reer Somaliland ee ku soo noqonaya dhulkoodu ay joogaan meelaha ay imika joogaan waa taladaasi waa talo ay bixinaysa wasaaradda caafimaadku oo aanay haddii mar walba iyada oo lagama maarmaan noqoto mooyaane inuu qofku halka uu joogo oonu iman haddii uu yimaado oo uu ka yimaado wadamada uu xanuunku aad uga jiro waxa uu gelayaa 2 week oo karantiin ah 2 week oo karantiin buu gelayaa ama calaamadii ha lahaado ama yaanu lahaanin 2 week oo karantiin uu gelayaa waa inuu qofku sidaa u ogaadaa waa inuu qaataa amarka waa in uu la socdaa amarada iyo wacyigelinta iyo marba update-ka ka soo baxaya ama hawlaha cusub ee ka soo baxaya ee aan bulshada la wadaagayno waxa iman doontaa inaan daily soo saarno press aanu dadka ugu sheegayno xaaladda guud ee adduunyada iyo xaaladda gaar ahaaneed ee Somaliland oo aanu mar walba si dadka tashanka looga yareeyo aanu bilaabi doono in daily update aanu sameeyno hadaa la yiraahdo onkaan israacine qarannimo waxay tahay onkaan israacine qarannimo waxay tahay qiimaheeda lumiya cadowba qabsada oo qabow kuma nastaan dhegeystayaal hadda inagu soo biirtay barnaamijka xogmaal ee raadiyaha Star FM ee dhegeysanaysa qodobo kale oo xiiso leh ayaa inoo soo socda markan qodobada ka baxsan cudurka coronavirus ee aan idinku haya barnaamijka xogmaal wasaaradda beeraha ee Hirshabeelle ayaa ka digtay in mar kale wabiga Shabeelle uu fatahaad ka geysto deegaanada maamulkaasi wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha ee Hirshabeelle Maxamed Bashiir Qaasim oo wariyaasha Jowhar kula hadlay waxa uu eedeyn u jeediyay hay'adda FAO oo uu sheegay in aysan wasaaradda la shaqeynin waa kan shirkiisa jaraa'id ee xildhibaan Maxamed Bashiir Qaasim xilliga roobka saadaasha aan hayno waxa waaye ayaynu dib u soo laabtay ayaa laga yaabaa waxaan leenahay waxaan ku baraarujinaynaa dadka marka Hirshabeelle inay arrintaasi ka feejignaadaan hay'adaha deeqaha bixi waxaan leenahay arrimahaasi ka hortagooda waa inuu diyaar garoobaan wasaaradda beeraha federaalkuna waxaan leeyahay arrintaasi iyaduna inay gacan ka geysato sidii
masiibadaas loogu hortagi lahaa. waxaa kaloo halkan baaq ugu dirayaa maamulada degmooyinka gobolada in waxqabadka kambaniyada samaynayo inay beeralayda wax u qabtaan iskaashitooyin ayaa jiro, wakiillo wasaaradda ayaa jira ee degmo kasta joogo. wasaaraddii dad aan soo diiwaangelin, wasaaraddu ka warqabin, la xisaabtamaynin, inaysan u fasaxin inay wax qabtaan. waad arkaysaan cabashooyinka ka jira hadda degmada Buuliburta ee aan media kala soconno. meris cabashada laga soo gudbiyey, hay'adaas meris annaga ka wasaarad ahaan namana soo marin, mana ka warqabno waxa ay qabanayso. waa ayaan darro marka NGO-yadu markaad aragto waa kuwa aanan rabin dowladnimo, waa kuwa aanan rabin isla xisaabtan, waa kuwa ku shaqaysto meelaha aan dowlad la'aanta ka jirto. waxaan leeyahay Hirshabelle dowlad ayaa ka jirto. kambaniyada ama NGO-yada raba inay ummaddan wax u qabtaan waa inay wasaaradda yimaadaan, waxay qabanayaan la ogaado, lala xisaabtamo, maamulka gobolka og yahay, kan degmada og tahay, ay ka baxaan waxyaabaha musuqmaasuqa ah. waana la xisaabtami doonaa insha Allah. NGO-gii ama kambanigii lagu arko asoo aan waxa uu qabanayo la ogeyn, waxaan ka mamnuuci doonaa inuu dhammaan ka shaqeeyo Hirshabelle. waa digniintii kama dambaysta ahayd. faawna waxaan leeyahay fadlan ma garan karno sababaha kalifayo inaad wasaaraddii maqashaan baaqyada ay jeedinayaan. waxaad qayb ka tihiin waxyaabaha la isdaba marinayo, waxaad raalli ka tihiin shaqadii sanadkan la qabto inay mid musuqmaasuqa noqoto, sanadka dambe dib loogu celiyo, sanad kale dib loogu celiyo. wasaaraddu waxay doonaysaa deeqaha caalamiga ah ee beeraha ku saabsan meeshii laga qabto shaqo hufan lagula xisaabtamay ee aan dib u soo noqonayn inay noqoto. fadlan waxaan leenahay Hirshabelle waxaa ka jiro maamul goboleed, waxaa ka jiro wasaarado kala duwan. wasaaradda beeraha waxay dalbanaysaa waxyaabaha deeqaha caalamiga ee la soo mariyo FAO in si dowladnimo ku jirto loo dhaqangeliyo. wasaaraddu ay xogaal ka noqoto, kula xisaabtanto, idinkuna waxa aad bixinaysaan wax sugan ay noqdaan. isqoonsiga dhexdeena iska dhaafa khaladko, isqoonsiga dhexdeena iska dhaafa khaladko. haddii aan kusii soconno weli barnaamijkeena maanta, safaaradaha ee Soomaaliya ay ku leedahay dalalka Kenya iyo Hindiya waxa ay ku dhawaaqeen in ay joojiyeen ama ay hakiyeen shaqadii muwaadiniinta Soomaaliyeed ee u hayeen ku nool dalalkaasi Hindiya iyo Kenya. safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa warbaahinta la hadlay, waxaana uu sheegay in muddo 7 ay joojiyeen ama ay hakiyeen shaqadii safaaradda Soomaaliya ee dalkaasi Kenya. waxaana uu sababta ku sheegay cabsida laga qabo caabuqa coronavirus. waxaana uu sidoo kale uu shacabka Soomaaliyeed ee muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi Kenya uu ku booriyay inay raacaan tilmaamaha dowladda Kenya ee ka hortagga caabuqa coronavirus. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. arrintani aan ka hadlayno waxay ku saabsan tahay shacabka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya. waxayna la xiriirtaa cudurkan coronavirus-ka adduunka ku faafay. Kenya ay ka mid tahay dowladaha uu gaaray ilaa haddana waxaa la sheegayaa inuu 17 qof uu saameeyey. waddankeenana waa laga sheegay inkastoo haddana leeyahay hal qof. marka annagoo ka fakarayna marka caafimaadka bulshada Soomaaliyeed ee ka adeegata safaaradda oo aad nambarkooda u badan yahay, annagoo ka fakarayna, annagoo qaadanayna awaamirta dowladda Kenya ka soo baxday oo in la wada xiro shaqooyinka oo guryaha lagu shaqeeyo, dadkuna uu socodkiisa, istaabashadiisa iyo kulankooda aad loo yareeyo. waxaan go'aansanay safaaradda in la xiro muddo asbuuc ah oo ka bilaabanaysa 24-ka kuna eg 30-ka bishaan ku eg. wixii shaqo emergency ah oo degdeg ah oo laga maarmi waayo waa la qabanayaa, laakiin sidii hore safaaraddu uma shaqaynayso. annagoo awaamirtaasna fulinaya oo awaamirtana waxay ka soo baxday, wasaaraddeena way ka soo baxday, dowladdeennana way ka soo baxday. inkastoo aad ay arrintani Kenya, dowladda Kenya ay aad noo qusaynayso, sababtoo dadka soo galaya safaaradda dadka soo galaya waa dad ku nool Kenya,
dhibaatadiina Kenya ayay ka taagan tahay sidaas awgeed waxaan rabnaa shacabka Soomaaliyeed in arrintaas ay maaragtay ka digtoonaadaan safaaraddii waa xiran tahay bisha 24keeda ilaa 30keeda haddii loo baahdo oo xaaladdu ay ka sii dartana waxaa laga yaabaa inaan muddada sii kordhino intaas waxaan ku darahayaa dadka shacabka Soomaaliyeed ku nool waddankan in ay maaragtay awaamirta dowladda Kenya ay soo saartay u hoggaansamaan waxaa ka mid ah masaajidada maaragtay iyo meelaha la isugu tagaayo maqaadaha inay ka fogaadaan taas ayay dan u tahay caafimaadkoodana ay ku jirtaa inayna gacanta iska saamin inay faraha ay had iyo jeer dhaqdaan inay jeebka ku wataan geedahan maaragtay gacmaha lagu nadiifsado inay jeebka ku wataan lacag badan ma joogto qof haddaad ay kaaga dhacdo dhaqankeennii baa salaanta ahayd in aad gacantii iska mayri kartid intayna afkaaga ama sankaaga ayna gacantu gaarin ama indhahaaga ayna gaarin inaad gacantii iska dhaqi kartid inaad badanaa qaadatin meelo cariiri ah hadaad la kulmaysiin ama gaadiidka haddaad koraysiinba inaad haysatiin maaskiga weji afka sanka lagu xiranayo inaad haysatiin taas waxay dhowraysaa caafimaadkiina iyo caafimaadka caruurtiina iyo caafimaadka ehelkiina ay dhowraysaa marka waxaan rajaynayaa arrintaas in loo hoggaansamo waxaan kaloo rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed inay ay ilaahay barido inuu cudurkan ummadda uu ka qaado gaar ahaan waddankeena inuusan ilaahay gaarsiin ummaddeennana ka badbaadiyo ummadda muslimka oo dhanna uu ka badbaadiyo adduunka oo dhanna uu ilaahay ka badbaadiyo ayaan ka baryaynaa ummadda waxaan kula talinaynaa inay maaragtay ilaahay u wada toobad keenaan ciqaab ilaahayna way waxaan maaha wax kale maaha waa ciidamadii ilaahay bay ka mid yihiin cudurkan aan la arkaynin marka dadku waxaan leenahay ilaahay ha baryaan ha ducaystaan salaadaha ha badiyaan soonka ha badiyaan ilaahay inuusan maaragtay cudurkan ku faafin waddankeena waad ogtihiin waddankeena xeeladiisa tabartiisa caafimaad waad ogtihiin iyo awooddiisa iyo dhaqaalihiisaba marka ilaahay inuu naga qabto uusan waddankeena ku faafin ayaan ilaahay ka baryaynaa ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ummaddeena ka badbaadiyo waxaan ilaahay waxaan ka baryaynaa ummaddeena quluubtoodana inuu isu soo jeediyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu laysu sheegtiyo isqoraansi baa yimi dhanka kale masaajidda magaalooyinka Gaarisa Mandheera iyo guud ahaan gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya ayaa maanta la xiray iyagoo u hoggaansamaya amarkii madaxweynaha dalka Kenya ee ku aadanaa in la xiro masaajidda iyo sidoo kale dugsiyada ku yaala dalkaasi Kenya culimada ismaamulka Mandheera ayaa ka hadlay xanibaadda iyo in ay joojiyeen jameecooyinkii lagu tukan jiray masaajidda magaalada Mandheera sidoo kale magaalada Gaarisa culimada ku nool ayaa iyaguna maanta arrintaasi ka hadlay meeshan waxaan tangaazinaynaa aan sheegaynaa in saaka culimada Mandheera ay fadhiyeen markii la maqlay tangaazada dawladda oo in masaajidaha iyo meelo kasto laiskugu imaado in la joojiyey amar dawle ay tahay culimmadu arrintaa waa ka fadhiisatay dhammaan waxaa isla qaadanay in arrintaa la qaato dawladda macayaarayso waxay ka talinaysaa maslaxada ummadda sidii cudurka dilaaga ah oo looga fogaado darteeda oo looga hortago asbaabteed in la qaato darteeda dawladda ugu dhawaaqday anakana waa ku raacnay si dawladda dhammaanteed insha allahu tacaala marka arrintaas yaa loo qaadinin arrin tacaddi oo diinta loola jeedo yaa loo fahmin waxay tahay arrintaa badbaadada mujtamaca ummadda in la badbaadiyo la taxadiro taas waxaan ku darayaa ummadda ha qaadato asbaabtii ilaahay baneeyey subxaanahu wa tacaala ha qaadato hadday tahay usu imaadkaas la yareeyo haddii aroosaha tahay haddii meelo kale tahay la yareeyo taas lagu nadaafada aada loogu dadaalo cadiga lagu dadaalo salaadaha shanta ah dhalinyarada si fiican u tukadaan oo rag iyo haweenba xumaatada fasaadka qaadka waxyaalahaas dhan kulli laga fogaado asbaabta ay ka mid tahay oo cudurkan ku yaraan kala tan kale ummadda dhammaal waxaan faraynaa waxaan ugu nasiixaynaynaa in lagu dadaalo oday kasta hooyo kasta gurigaada jamaaca oo lagu tukado ka samay wiilkaada ayaa qur'aanka yaqaana odagaada ayaa qur'aanka yaqaana
oday kasta gurigiisa waa inuu ka sameeyaa jamaaca 3 qof jamaaca ninka iyo xaaskiis waa jamaaca aroo marka alla baridiisa aad iyo aad haloo ziyaadiyo hala sadaqaysto ee sadaqada hala badiyo ducada hala badiyo qaradaha adduunyada laysu qoonsay nabadi uwad laysu sheegtiyo isqoraansi baa yimi wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad waxa uu sheegay in mowqif dhexdhexaad ah ay ka qaateen khilaafka dhanka biyaha wabiga Niil ee u dhaxeeya dalalka Masar iyo Itoobiya waxa uu tilmaamay in dawladda Soomaaliya uu mowqifkeeda uu cad yahay isla markaana uu yahay mowqif dhexdhexaad ah waxa uu wasiir Cawad meesha uu ka saaray in ay horay dawladda Soomaaliya u saxiixday qaraarkii ka soo baxay jaamacadda carabta isla markaana ay dib uga noqotay dawladda waxaana uu warkaasi ku tilmaamay wax kama jiraan haddaba saameyn intee leeg ayay Soomaaliya ku yeelan kartaa khilaafka u dhaxeeya dalalka Masar oo jaamacadda carabta ka tirsan iyo Itoobiya oo diris la ah Soomaaliya ee ku aadan biyaha wabiga Niil waxaan arintaasi inala falanqeyn doona Axmed Sahal oo ah aqoon-yahan ka faalooda arrimaha siyaasadda Axmed soo dhawow marka hore bal waxaad inooga warbixisaa muxuu yahay khilaafkan dhanka wabiga biyaha Niil ee u dhaxeeya dalalka Masar iyo Itoobiya bismillaahir rahmaanir rahiim idaacadda Star FM aad ay mahadsan tahay sida wanaagsan ay maaragtay barnaamijyada quruxda badan uga qabato qadiyadaha markaa ka jira geeska Afrika ama adduunyada oo dhan anu waxaan aaminsanahay in waqti dheer uu soo bilowday khilaafka u dhaxeeya Itoobiya iyo Masar gaar ahaan biyaha markii Itoobiya go'aan ku gaartay in biyaheeda gaar ahaan harada Tana maaragtay Niilka buluga ah ishiisa dhulka Tigreega ka baxa dhul qayb kamid ah dhulka Itoobiya ah inay u sameystaan sad waxa la yiraahdo aad u xoog badan waqti dheer ayayna hawsha Itoobiya waday oo ku dhow 17 sano muddo ku dhow ayay waday dhismaha iyo xireenkaas iyo hawshiisa 17 sanana marna Itoobiya iyo Masar waa isku soo dhawaanayeen wada hadalka marna way kala fogaanayeen marka laakiin markaan waxay u muuqataa inay qoys ku socoto ay u muuqataa marka xiriirkoodu aad ay u sii liidanayo waqtiyada ugu dambeysay waayahay marka saameynta muranka dhanka biyaha ee labada dal u dhaxeeya muxuu yahay saameynta Soomaaliya ay ku yeelan karto ciladaha jira waxaa ka mid ah xiriirka caalamiga markii loo fiiriyo arrintaas horta Masar waa shariik maaragtay Soomaaliya baatan kula ah waxyaabo badan gaar ahaan dhanka caqiidada oo kale dhanka xiriirkii hore ee Soomaalida oo kale iyo Masar tusaale ahaan 1960 marka xorriyadda qaadanay ilaa iyo 69kii dawladihii rayidka oo dhan dawladda Masar waxay ahayd dawladda koowaad ee saaxiibka la ah dawladda Soomaaliyeed ay ahayd dagaalkii Itoobiya la galnay 1964 Masar waxay ahayd dalka kaliya oo adduunyada isagoon ka baqayn hubsiga dawladda Soomaaliyeed ee aadan cabdi ee bariga jirtay aadan cabdullaah madaxweynaha ka ahaa marka Masar xiriirka ay Soomaaliya la leedahay ma ahan maaragtay mid oo maaragtay liita ma ahayn weligeed taariikhda inta la ogyahay dowr fiican ayayna Masar qaadan jirtay markii qadiyadaha Soomaaliya iyo arrimaha Soomaaliya ay noqoto ama iyada arrinteeda ay noqoto annaguna go'aano fiican ay qaadan jirtay maxaa hadda soo kordhay waaye marka waxa Masar iyo Itoobiya maanta Soomaaliya inay maaragtay ku dhex jirta keenayo waxaa kamid ah annaga dawladdeena hadda jirta ama madaxdeena maanta jirta oo aan xaqiiqatan markii aan waana ka xumahay inaan sidaa dhaho xaqiiqatan aan u bislayn inay maanta maaragtay ay fahamto dhibka intuu la egyahay ama geopolitics Soomaaliya haysta inta uu la egyahay culayskiisa taasaa marka waxay keentay inay wax aysan awood u lahayn ay dhexdoodaan mana ahayn Soomaaliya maaragtay inay kaalin ka gasha arrintaas tusaale Soomaaliya markii hore waxay ahayd codaynaan sameynay fiiri qaladaadka dhacay waxaa kamid ahaa codaynaan sameynay ma ahayn codaynta inaan sameyno waxaa la rabay Soomaaliya inay mowqif sax ah qaadato ama haddii aan codayn sameyno oo Masar aan u codayno waxaa la rabay inaan ku adkaysano maadaama Masar iyo Itoobiya markii la yiraahdo anigu waxaan qabaa Itoobiya waa cadow soo jireena oo Soomaaliya og tahay dal iyo dhul Soomaaliyeedna haysata madaxweynaha marka isagoo aan qadiyad madaxweynaha iyo dawladda iyagoo aan qadiyad Soomaaliyeed iyo badbaado iyo midna aan fiirinayn oo fiirinaayo kaliya kursigooda iyo danahooda siyaasiga kaliya fiirinaayo ayay maanta carabku u bedelay wasiirkii arrimaha dibadda ee Soomaaliya marka anigu waxaan qabaa ayaan daro Soomaaliya usoo yeerta inay tahay waana cabsi ay ka baqaayaan nidaamka Itoobiya hadda ka jira ee Abiy Ahmed maaragtay madaxda u
u yahay axmed waad ku mahadsan tahay aragtidaada laakiin wasiir cawad warays xalay uu bixiyey arrintaas wuu beeniyey waxaana uu sheegay in mowqif dhexdhexaad ah ay ka qaateen khilaafka u dhexeeya dalalka masar iyo etoobiya haddii sida uu hadda wasiir cawad sheegaya ay ka qaataan mowqif dhexdhexaad ah saameyn cenkee ayay marka soomaaliya ku yeelanaysaa dhexdhexaadnimadaas waxay caddeyn u tahay horta inaan isla fahnaa arrintaas ayaa wanaagsanaa lahayd wasaaraddeena arrimaha dibadda soomaaliya waxaa ku jiro tarabus wax carabiga lagu yidhaahdo ama ma fadhiga macnaha waxa waaye waa dad kala carabeynayo waay marba carab ku hadlaaya ayay noqdeen mana wanaagsana markii wasaaradda arrimaha dibadda ama xiriirka caalamiga loo fiiriyo in wasaaradda arrimaha dibadda iyo qaybaheeda ama xiriiradeeda ay kala hadlaan ama wakiilkii soomaaliya meeshaas maaragtay ka codeeyey oo si u hadlo wasiirkii arrimaha dibadda soomaaliyana uu si u hadlo horta qaangaar la-aan wasaaradda arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga soomaaliya maanta haysata inay tahay ayay caddeyn u tahay waa midda koowaad midda labaad waxa waaye in hadda juhuudda laysugu geeyo ama dadaalada laysugu geeyo in soomaaliya ay maaragtay by interest public interest iyadoo fiirinayso danta soomaaliya intay ku jirtaa iyadoo fiirinayso in maaragtay dhinac markaas aan aadno weliba anu waxaan ku tali lahaa inaan maaragtay aan etoobiya aadinayo maaragtay aan masar maaragtay aan xiriradii aan lahaan jirna aan wanaajino taasoo maaragtay waxyaabo fara badan oo taariikhda waayo annagu etoobiya ma aamini kaasi wuxuu ahaa axmed sahal oo telefoonka igu waramayey islamarkaana ila falanqeynayay khilaafka u dhexeeya dalalka masar iyo etoobiya saameynta uu ku yeelan karo khilaafkaasi dalkan soomaaliya siyaasado qarsoon iyo qosolaan qalbiga jirin been baa lagu khaldaa si loo qaybiye soomaaliye mid qura noqo maanta magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa lagu dhaariyey xildhibaanada baarlamaanka labaad ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya oo dhowaan ay soo xuleen odayaasha dhaqanka koonfur galbeed kuwaas oo ah 95 xildhibaan waxaana dhaarinta munaasabada ka qayb galay odayaasha dhaqanka ee xildhibaanada soo xulay iyo sidoo kale xildhibaanada maamulka waa xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya odayaasha dhaqanka iyo xildhibaanadii ka qayb galay ayaa dardaarankan u jeediyay xildhibaanadaas oo 80% lagu tilmaamay inay dhalinyaro yihiin أبي ولا هم صبعا عدالة شقيقا عهد من قبل مسيرة أصل من كست أصل كور أصل معي شقيقا داران كوفر كذا طبعا تدي لغات نقول كم الشقيق سين شقيقا لا يشنو كذا أنا بعثره وإذا عن أول هم يعني شيء كمل بعثره قاشو ساسودي marka way kasoo faray hadii sanadkii shaqo shaqaysan oo shaqadii sharciyeedkiisan tafaasiil sanadkan dowladda laakiin shaqaytan inay wadaniyiin muddo afartii maalmo ama dhaqaaq oo ay tahay oo qofka leeyahay safar marja la galo saaxiib tilfadi ana ma imanata sidoo qofka badana sidoo safar ka isticmaalayo marna ma isay baraaw la qor مرضي سورة قال ما تفصل قال وابوي تاثر في كمان ده سنة كده تنقل لما ضيع شرط له أو حدي وجرن سنة سمامو أو ما تبغى ما يقول كم مرة كذا تمو هو كله قبل كم مرة كذا تمو هو مشاهين سياسة قرصونيو قصلان قلبي كشرين بين بالغو خلدان ودان dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka xogmaal oo qodobbo kala gedisan aad ku soo maqasheen waa soo saaristii iyo tabintii Sadaam Maxamed Daahir farsamadii Maxamed Abuukar Cabdi Xafiid Nuur Maxamuud ayaa inoo aqriyay warka dhacdooyinka Soomaalida iyo caalamka intayna barnaamijkan kiisa xigeen ku kulmi doono waa dhammaanteen idin la nabadgeliyo sidii ay laba qofood markay qaqawayin midina midu qaadi karin إلا الميل قرن كجرو قابيل كما سوكالي قدينو هداي متاهي ما حينو لقاتني قبيالة نوغا
dhigay qiblada loo wada tukado qurumaha dunida jira yagoo kala qaaraday haddana qaateen midnimo dabeed qani bay noqdeen dhulkoodana lagu qulqulo soomaaloo isku qoysaho afiyo dhaqan qudhaalaho qormiyo meel wada degtana maxaa loo kala qoqob waxaa loo kala qoqobay khilaafkana loo dhex dhigay inay quwadaysano qaxoonti ahaato oo qayrkooday tuugsada qabyaaladu way xun tahay qallooc weeyaan bulshooyi qorshaa lagu meel maree ma wada qaban qaabinaa wixii talo naga qaldam adduunyadu qiima male qudhaanjo kolay ku tahay ilaah baa quudiye intaad ku qadayn lahayd qabiil wax ku doonilayd aadoo qadaba karo haddaan qabriga madow qolada aad ku faanaysiyo qareenku hiilinayn qiyaamana aad og tahay qabiilka maxaad ku fali waxaynu u qaadanaa qabiyo isla weyni iyo dalkoo qurub qurubu go'a ayaan qurux moodnayo qardan wada xoogsana